dowladda Kenya ayaa maanta si toos ah ugu dhawaaqday in dhammaan dalalka Afrika markii laga reebo laba dal ayaa yaabi doonta dhammaan dalalka Afrika wixii visa ahaa waa laga joojiyay yani visa looma baahno markay dalka Kenya soo galayaan oo maanta waxa u malaysaa Afrikaankii oo dhan inay dabaaldegayaan oo qofkii raba inuu Kenya aado wax visa ah inuu soo dalbado looma baahno soo socday alboorka soo degaa magaalada iska galaya viisihii qarashka badnaay dhibka badnaay iyo adiga maanta marka dawladda Kenya waxay taagan tahay xuduudihi waa furan yihiin saaribtu soo gal marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya garanayba xuduudba ma laha waqooyiga Afrika ku taala Liibiyaanka wax tan ay ka leeyihiin Nairobi iyo Mombasa shaqadooda ma aha Soomaaliya oo daris la ah Kenyaanka waliba Soomaaliya oo ah bulshada ugu tirada badan Kenya ku nool ma aha Suudaniiska ما أهن إثيوبيان أو حدود إلى كي وحي حدود لا هاي وصوماليا وإثيوبيا والسودان وتنزانيا سووا أكتين يوغندا انت هاس أو ضل وحاوغت تربضن صوماليا أوغت تربضن جناع سيغا يدقالها فرح بدن اللي قبطو كينيا قارها نيروبي صومالي ذا أيا سميسو انت صدوم أيدين شرح دونا بوقالك لاري مرو وأرنكان مانتا دولة كينيا وواقعيو وفرحسيني هاي هرطا ينفصح. It's official. Kenya is now visa free for all Africans. So just come. You don't need to fill in the electronic travel authorization or do anything. Just come visit us. We're awesome. Come see Nairobi, Africa's greatest city, and other things. Where is the mark? We're Benin, we're Gabon, we're Sudan, we're Cote d'Ivoire, Ivory Coast. war Nigeria war Congo war Ghana war meesha ritidka imaw dalal far badan oo dhibaato argagixiso qalalaaso dib u haysto Afrika ka buux kulligooda waxa la yiri saaxib waa soo gali kartaan waa iman kartaan marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya Soomaaliya marka aan dib ugu soo laabano Nairobi waxa ku taalo xaafad loo yaqaan Isli waxay ka qabataa dawladda Kenya Nairobi meesha ugu badan dhaqaalaha laga qabto Nairobi da maqlaysi downtown-ka ma aha downtown South C iyo South B iyo dadka yaqaano ma aha Isli waxa laga qabtaa bishii $100 million $100 million oo dollar ah Isli kaliya laga qabtaa maamada caanaha gado maamada shaaha gado yarka kabaha gado maxal dhijiri yarkan kale asagana meesha ganacsiga yar ku leh dadka ganacsiyada waaweyn leh hoteelada muqaayadaha maxal dhijiri dukaamada dharka lagu iibiyo waxa soo dhan Isli $100 million ah bishii Nairobi ay ka qabtaa wa 30% sanadkii Isli kaliya waxa laga qabtaa waa $1 bilyan ay Isli ku deeqdaa Isliin Soomaaliyeed degan Isli waxay ku deeqdaa ama ay gelisaa dhaqaalaha Kenya lacag $1 bilyan gaariso bishana $100 million Soomaaliya dhan isku dardar dalkeena intaas laga ma qabto taas waa haysa Soomaa saas ay tahay waa lagu jas waxa la yiri idinka visa idin ma banaan war Burundi soo gali karo war Rwanda soo gali karto war soo Suudaneeska ogeedeen isdilo isqalo oo baangada iskala daala soo gali karo idinka Soomaaliya daatihiin anagoo waliba dalkaas dhaqaale iyo ganacsi iyo adduun dhan ku leh ma soo gali kartiin waxa idin fasaxaya muuqaal yar aadan barre ducaali nina aad u taageero hortagaas qadiyada akuin yani qadiyada Kenyanimada ka hadlayna idin fasaxo waxa ka damacsan inaan idin sheego doona ninka odayga ah oo hadlaayo oo dhahayo aniga Kenyana ah wasiir Kenya ah Somalia la utilmaamay hal ilaaf I am not a Somali minister. I am a Kenyan minister. And that is the oath I took. But you are better at least you have called me Somali. Some called me warrior. Which is very, very demeaning. It is very demeaning. Way sida maqlayeen Soomaalinimada waxay noqotay wax laga cararo aan lagu faanin. Dadka adduunyada kale ka yimid Mareykanka imaado way ku faanaan meesha ka imaadeen xitaa ayagoo wasiir ah jaga ka haya Mareykanka meel walba tagtid asalkaada waa lagu faanaa maxaa kalifay in Soomaalinimadii laga faano aadan bari ducaali kaliya ma aha siyaasiyiin fara badan oo Soomaali ku hadla Soomaalikiin meelaha kale markay tagaan way ka yara xishoodaan su'aasha jawaabteeda waa iska fududahay annaga meeshaas isdhignay nasoo celi marka
aniga waxaan aaminsanahay hal qodob keliya dowladda Kenya inay Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ee uga saartay liiska in si xor ah dadyoga ay ku soo gali karaan Nairobi ama Kenya waa yasmo waa يعني ويسمع waxa laga soo qaadayaa qof aan waxba ahayn fal argagaxis way ogyiin kayaanka in ummad Soomaaliyeed gabi ahaantooda ay diidiin argagixisada marka fal argagaxiso ama dadkan waa argagaxiso ma ah anagoo dalkii labaad kayaanka marka laga soo tago dadku ugu tirada badan ee Ugandaiska ahaan ee Tanzanianka ahaan Ethiopianka ee Suudaniska ee Soomaali yihiin ee dalkaas degan ee dhaqaalaha ugu faraha badan dalka geliyo dadkii kale oo dhan waa la fasaxay anagana lama fasaxin xisaabtaas aad u fududa isku dardar walaalow maxaa noo talaa